السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب دمان وأنا سلامي مال الدنيا تعليقة كجبتين دمان وحن برندونا إن شاء الله دولة هذا كسر هذا كلامك إلى Stitch Knowledge Graphics Design halkan waxaan ku baran doonaa graphics design ka sida loo sameeyo insha Allah haduu ilaahay yiraahdo mardo waxaan soo kacsanaynaa photo BZZ ga 2020ka dhamaan waxaan halkan ku baran doontaa designada sida loo sameeyo graphics design ka logoyinka photoshop ka video editor ka dhamaantiin waxaan oran lahaa kama afar ku soo dhawaada waa anigoo magacaygu yahay Cabdixakiin Xasan Yaasiin fadlan ku soo dhawaada insha Allah mardoona waan bilaaban doonaa dhamaan asxaabta qaaligaana waxaan leenahay meel walba soo dunida dacwada ka joogtaan ka barta iyadoo bilaash ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maalin wanaagsan kusoo dhawaada shabakada laga barto cilmiga kombiyuutarka gaar ahaan graphic design ka samooda graphic design insha Allah waxaynu qaadan doonaa cashar kale oo aad u xiiso badan kaasoo aynu ku design gareyn doono Adobe Banner sida bannerkan oo kale insha Allah waan sii gudagali doonaa Photoshopkeen haddaan kacsano ugu horeyn horta file aan tagno new aan ka doorano kadib halkan aynu soo bixi doonto width-ka iyo height-ka waxyaalihi la kala gelin lahaa horta meeshan inches ay ku qoran tahay halbeega pixels iga dhig kadib intaan gashan doonaa wixii width iyo height ah inta 800 iyo geli width-kaygii height-kaygana 800 micnaha 800 square. Adobe Banner waa lagu kala duwan yahay sida business card ama ID card camal size oo standard ah ma lahan marka hadba qofka iyo size uu u baahan yahay markaas isaga xulan doono mararka qaar waxaa lagu design gareeyaa bannerka caadiga Facebook camal mararka qaar 800 square ka hadba qofba iyo size-ku uu rabo waay size-ka isaga ay ku xiran tahay marka anaga hadda waxaan ku design gareyn doonaa 800 square resolution-ka 300 aynu ka dhigan doonaa kadib create meelahan kale waxba kama bedeleyna RGB haday ku dooran tahay ku dayso marka hadda create aynu leeyahay control 0 noo dheh oo full screen nooga dhig kadib hadda markii warqadan ay soo baxday isla markii design-kan ugu gali doonaa waxaan soo qaadan doonaa paint tool-kan waxaan inta fiirin doonaa inay path ii dooran tahay haday path ii dooran tahay waan ka tagi doonaa iyo shape aan dooran doonaa kadib sawiraantii aan gali doonaa halkan aan ka bilaabi doonaa xogeer iga fogey kadib ilaa inta shift aan la qaban doonaa asaga automatic ii toosin doono kadib waa soo wareejin doonaa paint toolka asaga waa un sida qalin camal oo kuwa aadinaysa oo kaliya shift haddaad qabatid si straight wax kuugu sawiri doonaa shift kadib dhan lay u bado dhanka u badan tahay oo ku toosin doonaa xagal iyo waxba kuma gelin doono kadib waan deysan doonaa insha Allah isla kana control J leenahay kadib control T aan dhahaynaa xogo karan u bixinaynaa inta double click ku si background color kaga soo daaran doonaa colorka hexadecimalkiisu waa idin soo diri doonaa insha Allah kadib sidaan aan leeyahay intaasaan ku daysan doonaa hexadecimalka colorkan waa kan si fiican u fiiri dada 3826 sidoo kale midka bluega asagana hexadecimalkiisa waa kan isla colorka si aad u isticmaashid asagana waa kan 175591 intaasaan kaga gudubna marka hadda intaan waan sawiranay sidoo kale halkan waxaan ku sawiri doonaa hadda labadan waan sawirnay inta background-ka log-ka qaad isla asaga laftigiisa waxaad ku shubtaa color kale dark blue maahan laakiin colorkan gray scale-ka asagana hexadecimalkiisa waa ujeedaa F4 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 waa ku dhameeyay kadib saddexdoodaba log iiga xir sababtoo ah waxaan rabaa meeshan inaan shaqo ka qabto oo aan ku dul shaqeysto haddii aan sawir soo geliyo ama haddii aan qoraal soo geliyna hadba dhinacaan rabo aan u jiijiido laakiin haddii oo aan log isaga xirin hadhow markaan jiidaa mid walba iska dhaqaaqa ilaan ma xirna marka aan iska xiro qaabka loo xirana horaan idinkugu soo baray log ku xirkan sidoo kale layer walba dultag kadib looga le taawo dultag looga taawo bes only intaasay ku eg tahay waran horta naqshadii aan ka dhamaan doonaa mar walba wax shape as sawirate shift la qabo
horta fill none deh shapekan stroke blue deh 1 mahane 2 inoo deh or 3 kadib dashtan ka dooran doonaa qaybta dashta aan ka dooran doonaa okay hadda duusan saxmin waxaad tagi doontaa select all selection aad saari doontaa kadib centralized asaga automatic isa sixi doono hadda saa ujeedid centerku inoogu aadan yahay control read hadda maxaa ka qaldan waxba kama qaldana oo intaan hadda wuu inoo diiday inay soo muuqato intaan sababta uu soo muuqan waayo wax kale maaha waxaa isla backgroundkii iyo colorka uu wato strogan isku ekaaday marka sida inta kaaga muuqatana inta waa orange halkanna waa white marka automatic hadaynu saas ku sameyneynaa orange hadda way soo muuqatay laakiin inta waaba ka maarmeynaa isla asaga control J deh white ku shubo color white ka dhigo halkaanaad ka bedelaysaa F4 ka asaga waxba ma lahan intaad kaga shubeysaa stroga maadaama strog yihiin oo aysan fill ahayn marka qaybta stroga bes aad kaga soo shubi kartaa marka hadda labadooda waa isdul saaran yihiin midba midka kale wuu qarinaa kana uu koreeyo mugtahay asaga iska sii dami waxaad sameysaa midkaan sii dami deh midkaan dayso right click deh waxaad tagtaa rasterize layer kadib waxaad tagtaa selection kana tagi doontaa polygonal toolka kadib hoos iigu soo dhig halkaanaan kasii tagi doonaa inta kor sidaas ugu sii bax ilaa intaan soo wareeji rasterize layerka wuxuu iga saacidaa layerkayga inuu sawir isku bedelo hadda katina ku sameynaa control X waxa aan jaraayo wuxuu noqon doonaa midkaan uu noqon doonaa rasterize layer control X waan jaray hadda marka midkaana sareeyo midka white ka ah sareeyo koran u qaadi doonaa midka kale isoo kormariyaan leeyahay hadda waa ka labadood waa soo muuqdeen white haddii aan kor geeyo asaga wuu qarin doonaa midka kale laakiin si labadooda ay soo wada muuqdaan midkan kale oo orange-ga kor geeyay hadda waa kan si fiican u fiiri labada gees colors kala duwan ay ka yihiin okay hadda marka sawirkii aan soo gashanaynaa sawirka oo kabtaan aan isticmaalaynaa waan idin soo diri doonaa sawirkan kadib looga ka fur expand panel kan isoo fur properties-kayga waxaan ka raadinaa remove background automatic asaga shaqada ii qaban doono aniga wax selection aan sameynin asaga shaqada ii qaban doono kaliya waxaana step kan mari karaa qafka haysta Photoshop CC 2020 waa kan wax uu iigu reebay ma leh aan inta ka ahayn shadowgan yar shadowgan waan iska saari doonaa insha Allah halkan tag waxaan ku saari doonaa object selection tool markaan soo doorto mode-ka aan ka bedeli doonaa lazo aan ka dhigan doonaa halkan select garay sidaan dheh ilaa intaad rabtid select garay asaga objectiga asaga yaqaan markaas qaybta banaanka biso hadii select gareyn doonaa kabta waxba ma ka gaarsiin doona X aan leeyahay waa ka hadda waxna ima raacsana markaan labada tool waxa isticmaali kara dadka Photoshop CC 2020 ugu jiro kadib halkaan aan kabta keensaday waa kisa u jeedid kabta waatan control T de xoogo yar si leexi hadana okay ku sii deyso control 0 soo dheh hadda intaasan ku deysan doonaa font size waxaan ka dhigan doonaa 36 aan ka dhigan doonaa lato black mesh ee bold aan ka dhigan doonaa hadba fonts ka aragtidna waa isticmaali kartaa adiga inta waxaan ku qoranaynaa new array alice xogo fontiga inoo soo yaray intaas camalaan ku daysanaynaa halkan inoo dhig mastaradaan soo gashanay control H aa kusoo gashanaysaa control H na kusii bixinaysaa horna u soo qaadan hadda hoostaana rabnaa underline inaan ka sameeyno wax kale ma sameynayni rectangle tool aan soo qaadanayna asagaan ku dul sawireynaa
intaas camal xoogo yar waa la facaysiinaynaa waana ku dadaalaynaa inuu la facado kadib hadda double click geeskan oo shape-ka camal aan ka siinaynaa intaan kaga daaraynaa kani waa orange underline-ka orange aan ka dhiganaynaa fontigana blue aan ka dhiganaynaa si design-ku isku lahaado marka design-ka colorska la isticmaalay aan isticmaalaynaa okay intaas hadda waan sameynay waxa kaliya hadda inoo dhimo waa big cell inaan qorno halkan imaw big cell hadda space-ka labadan font isku dhaxeeya aad u kala fog yahay halka laga saxayo properties-ka isoo fur haddii intuu kuugu jirin halkan ka raadi waxaad tagtaa director-kaaga tagaysaa kadib meeshan labada ah isdul saaran auto ka dhig haddii aad kusii qanci weyso marka minus geli ama adigaba yaray falaarta dhankan u wad marka xoogo 10 ilaa 10 aan geeyey intan kasoo yar kala bixbixi fontiga aadna u kala fogeynin intaas ku day sidoo kale meeshaan 140 aan geeyey halkan black ka dhig sidoo kale size-ka wax yar ku dar okay halkan kusoo laabo hadda markaa hoos u kala bixi okay intaas ku dayso way noo filan tahay intaas xoogo control T de space badanaa ku jiro waa ka saari doonaa inta waxaan ku qoran doonaa off up to 40% fontiga dooro xoogo fontiga soo yaraa horta halkan soo furo si aad isugu soo dhaweysid labadan aad dul tag auto dheh haddii kale sii fog yihiin isku soo dhaweey okay halkan dul tag iyaduna intaan i select garay xoogo soo yaray wili halkan imaw fontiga weyni meeshan okay geeskan dhigo meeshan fartaan waxaad ka doorantaa meeshan colorka waxaad ka doorataa colorkani ka dooro hoos waxaad soo dhigataa loogadaadii anigu hadda loogadeedii way ii diyaarsan tahay waan soo gashan doonaa oo keliya loogadeedii halkaan aan soo dhigay intaasaan ku daystay halkan waxaa iga dhiman inaan ku qoro shop now iyo website-kayga magaciisa halkana waxaan ku qori doonaa shop now inta badan markaan fontiska automatic waxaa ii dooran blue markaan wax qoray blue qaadan doonaa marka laakiin waan bedeli doonaa taas dhib ma lahan waydaan ka dhigan doonaa control T aan ku yareynaa asay transformka wax waa lagu yareyn karaa okay intaasaan ku daysanaynaa wili sii yaray hadda rectangle tool isoo door halkan iigu sabir oo yar intaas camal ka dhig marka meesha markay kusoo baxda properties-ka round red ka dhig isto yar orange-na ka dhigo fartaada macnaha colorkaaga hadda shop now wuu qariyey rectangle kale hoos soo dhig waa intaas hadda marka labadooda dul tag kor u bixi waxaad samaysaa shop now dul tag hadda xoog yar hoos soo dhig rectangle toolkaagii wax yar shift adoo haaya inta u bixi shop now da asay transforming ku yaray waxaad samaysaa custom shape-ka tag waxaad kasii tagtaa legacy oo legacy default-ga ka tag waxaad ka tagtaa arrows-ka waxaa kasoo doortaa midkaan kasoo dooro kadib meesha kan shop now xoogo soo siki marka hadda intaasaa kaga gudbaynaa inta waxaan ku qoranaynaa www.samewade.com www.samewade meesha balaaga ah waxaad ka dhigtaa regular ka dhig fonti select gara meesha balaaga ah waxaad ka dhigtaa regular ka dhig inta
tag xoogaa fointiga kala sii bixbixi kala fogaanshahooda okay bes meesha ku daa intan ku daa hadda wax yar ay dhiman waxa kaliya ii dhiman waxay tahay meeshaan zooming camal marka la soo dhabeeyo coloriskooda iyo siday u ekaanayaan asagana waan sameynaynaa intaan tagaynaa rectangular tool aan soo qaadanaynaa intaana ku sawiraynaa dul tag ku dhufo colorkeygii kadib transforming ku suubi sidaan dheh markaan degree sax oo 45 iyo waxaasay tima dooranaysid adigay kugu xiran tahay waxaan sameynaa kabtan inay ka dhex muuqataan rabaa kabtan ku hoos marinayay inay ka dhex muuqataan rabaa meesha colorka ay tahay si aan ugu tilmaamo qafka meeshaana ta falaart ku tilmaamo waxaan rabaa inaan dhaho zooming marka lagu soo dhaweey colorkaana ku soo baxaya ama sidaan uu egyahay muuqaalka kabta layer cusub soo furo elliptical tool soo qaado shift la qabo intaas ku day marka wax kale ma sameeynayni sabiraan soo dhex gashanayna colorku ma shubeen sabiraan soo dhex gashanayna sabirka kabta leen soo gelinayna balse markaan qaabka hor qaab ka duwan oo la tacaamulayna meeshaan yaraan dhex gelinayna sabirkan sidaan u weyn anoo aan waxba ka yareynin kadib transform aan leenahay waa kana kabta hadba meesha aan markaas rabnaa ku aadinayna inta rabnaa marka xoogo sii weynay elliptical tool kana control J leenahay midka hoose control T aan leenahay alt aan la qabanayna si equal size uu inoogu weynaado kadib double click waxaad inooga dhigtaa orange-gan blue inooga dhig markaan rabna inaan inta keenno orange-gana colorkiisa sidaan oo kale u muujino wax kale ma sameynayni saddexdoodaan hal mar select garaysanayna iyo rectangle toolkeygii yaraa afartoodaba control horta meel igu hadhow aan ku kale ugu dhex aqoonsado marka dhammaantooda control J aan leenahay control J marka zooming deh inta keen ugu horeen meeshaas kadib transform aan ku suubinayna markaan transformka xisaab sax ma gelinayna anaga maamulanayno meesha aan rabno markay noogu aado aan iska sii daynayna usha markaan inoogu yar wax dhibaato ma lahan waa weynaysanayna usha markaan wide aan ka dhiganayna wide keenan ku daaranayna stroke-gana asaga orange aan ka dhiganayna stroke waa blue orange aan ku bedelanayna halkan meesha sawirka kaaga muuqdo qaybta orange aan ku aadinayna waa intaas control 0 soo dhig meeshaan bis hadda waxa inooga dhiman falaart inaan dheereen sababtoo haddii inta aan ku aadino waxay u dhigantaa colorka inta ku soo baxay in la dhahay marka white inuu soo baxaa markaas qasab igu noqonay laakiin hadda marka si aan orange-ga ugu tilmaamo qafka colorka u tilmaamaysi loo fiirina marka haddaan ku laawanayna meeshaan control T hadda colorkan u tilmaamay waa saxan yahay hadda design-keena si complete waa dhameynay sidaas sahlan aan ku sameynay marka insha Allah idinkana waxaan rajaynaa midka qurux badan inaad sameysaan practice garaysaan ku celcelisaan kuwa kalena aad sameysaan insha Allah hada billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh 10 kale kan xiisa badan aynu balana insha Allah